cadaalad xumada ka taagan xamar ee nin walba haysata ee guri walba haysata yaan cabasho ka muujinayaa cabashadaasoo ah dhul aan ku lahaa xamar oo 27kii aan iibsaday oo aan la wareegay oo aan sharciyeystay yaa la igu qabsaday waxaa igu qabsaday niman leh caydiid baana siiyey markii bacdal muxuu ahaa burburkii dhulkaas waxaan caddaynayaa inaan anigu leedahay oon wakhtigaa iibsaday oo aan sharciyeystay haddaba waxaan u dacwooday maamulkii hore ee muxuu ahaa wadaadada wax badan bay laalaabiyeen aakhiri waxay yidhaahdeen ma nin muxuu ahaa daarooda maanta dhul naga doonaya ka sokow waxaad dhalatay dawladdii Soomaaliyeed ee federaalka ahayd tiibaan iyana u dacwooday waxaa loo diray xeeraalinta soo baadhaa la yidhi xeeraalintu CID bay dirtay CID waxay soo caddaysay dhulka inuu Axmed Cabdi Xaabsade iska leeyahay waxaa loo diray markaa dawladdii hoosena waxay caddaysay in dhulka uu leeyahay Axmed Cabdi Xaabsade waxaa kaloo loo diray hawlihii guud oo ku shuqul lahaa dhulka iyana waxay caddeeyeen sharciyadaasuna ay sax tahay Axmed Cabdi Xaabsade dhulka leeyahay arrintii markaa waxay tagtay maxkamaddii hoose waxay caddaysay dhulka inaan leeyahay oo xukun bay ku riday waxaa kaloo xukun ku riday oo abil laga qaatay maxkamaddii racfaanka waxaa kaloo iyana abil laga qaatay oo maxkamaddii sare loo qaatay iyaduna waxay ku riday dhulka inuu Axmed Cabdi Xaabsade leeyahay maxkamaddii sare waxay qortay fulintii in dhulka la ii fuliyo raadi fulinta way qortay oo waa la muxuu ahaa way qoreenay waa la diiday waxa diiday nin jooga muxuu ahaa dawladda hoose oo ogaa dhulkan sidaa loo wada saxay oo leh waxba nagama gelin waxay la qoray iyo waxaasoo dhamme dhulka kan muxuu ahaa lacagna la siiyo ninkii baa weli igu dhegan oo ninkaasu dawladda hoose ka shaqeeya waxaa la yidhahdaa saalax ninka la yidhaahdo muxuu ahaa intaanu imanin ninkii hore muxuu ahaa dawladda hoose intaanu meesha ka tegin prime ministerkaanu dacwooday madaxweynahaanu dacwooday intuba hal siiyay dhulkooda waa lagu dhegan yahay hadda waxa haysta ninka saalax la yiraahdo wuxuu ku haystaana waa sharci darro dalka waxa la yiri nin walba wixiisi ha loo celiyo dalka waxa la yiri cadaalad ha lagu soo oogo dalka waxa la yiri waa la wadaagaa intuba been weeya saakxood ma jiraan waxaan cadeynaynaa inaan inta wax ka jirin cadaaladina aanay oolin wax la wadaagaana ay jirin dawlad la wada leeyahay aanay jirin waxaan codsanayaa mar labaad waxaan codsanayaa ninkaas anigu waxaan u dhiibanayo oo uu xukumayo oo dambe haba yaraatee ma jirto waxaan codsanayaa in dhulkaygii la iga kaco ilaa in madax baneeyo oo anigu aan yeesho yaan codsanayaa ummadoo dhanna waa ka codsanayaa dawladda hoosaan ka codsanayaa madaxweynahan ka codsanayaa prime ministerkan ka codsanayaa maxkamaddii saraan ka codsanayaa waxaan leeyahay dhulkaygaas waa la ii xukumay hal la iga kaco waa tahay marka dhawaan gudoomiyaha gobolka Banaadir Lugaab wuxuu sheegay in ummadda Soomaaliyeed hantideedii xamar loo celinayo qof walba wixii lahaa loo celinayo oo dhul celin la sameeyo taas maxay kula muuqataa waxay ila muuqataa hatta madaxweynaha Puntland
cabdiweli cali gaas yaa la hadlay Mugaab oo yidhi dhulka saasaa loo xukumay saas weeye ha loo celiyo dadka u xiisay uu ballan qaaday in la celiyo haddana waa la siistaa marka ma wax aan jirin baa la isu akhriyayaa ma kitaabaan oo lin baa la isu akhriyayaa ma waxaan jirin baa dadka loo sheegayaa waxaan leeyahay Mugaab waxaan leeyahay dhulkaygii iga kaca dadkaasna haddii sharci jiro muxuu ahaa iga sii